السلام عليكم أصحابتي وهي أصحابتي هوريلي joogta baguliga gobonimo idin laantiin abaar waaye asxaabta igu cusub waxaan leeyahay asxaabay iskareebka la iisar walaalayaal dhiirigelinaya taal iskareebeysalta like-tan la iisar commentigana xageena waa insha Allah biidnillaahi kariim dhammaantiin baguliga gobonimo idin leeyahay bal wax yar aan isla fiirsan waa wax laga xumaado gabadha jira ninka naagnimo u damcaayo subxaana kuwa raali u hela waaweyn adurkiisa iska gal miskiinta yarka maxaa laga raba saqiirka oo loo dambaajina saqiirada yarka wallaahi bilaa ragga qaarkood rag ma wada ahaan ragga qaarkood oo xanuunsan Allah caafiyo bal isla fiirsan waxay galmoodkaas la kubsaday dhaawacna uu ku yaalo ayna bigrajab waa ilmo yar oo saqiir saan u jeedin lix sano jir waaye ma garata waxaas saddexda aldheela waa qof weyn oo ay isku samaysay ma garata waxaas waxaa maanta lasoo gabagabeeyey fadhiyo dhowr ah oo ay maxkamadda gobolka galgaduud ka yeelatay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo haysto eedeysana maxamed cabdi dhoore oo xafiiska xiraalinta guud ee galmudug oo kusoo eedeeyey kufsi iyo afduub wadajir ah oo deegaanka godin labe ee gobolka galgaduud lagu geystay 19 bishii 8 2021 oo 6 sano jir ah isla markaana uu gaaray dhaawac xoog leh cabdixakiin maxamed xirsi xeeryaale ku-xigeenka galmudug ayaa fadhiyada kala dambeeyay ee maxkamadda kusoo bandhigay qiraal laga qoray eedeysanaha iyo cadeymo kale oo muujinaya dhammaantood sida uu falku u dhacay oo ay ka mid yihiin warqadda dhakhtarka dharkii gabadhu xirnayd iyo sawirada goobta oo dhammaantood xeeraalintu dalbatay in loo cuskado ciqaab adag oo la marsiiyo eedeysanaha halka eedeysanaha ku taariikhaysnaa 21 bishii 2021 uu asagu ka qartay maxkamadda horteeda soolkana laga saaray qiraal maxkamadeeda waxaa kaloo soo gudbinay xaashadii dhaawac muujinta ee dhakhtarku soo sameeyey dadtaas caynaysa in falkani dhacay gabadha loo geystay galmoodkaas la kufsaday dhaawacna uu ku yaalo ayna bigrajab waa ilmo yar oo saqiir saan u jeedin lix sano jir waaye ma garata waxaas saddexda aldheela waa qof weyn oo ay isku samaysay ma garata waxaas dareenkii ma lahan aqligay ku samayn lahayd ma lahan eedeysanaha ayaa mas-uul ka ah falkaas gabadha ku dhacay maadaama uu qirtay uu leeyahay anaaba falkan sameeyey dhaawacna isaga ayaa loo geeyey mudane gudoomiye baarihii kiiska ayaa wuxuu ka caddeeyey maxkamadda horteeda in uu goobtii tegey soona qabtay ninkan isla markii soo qaban inuu qiraal ahaa laakiin anoon taas qiraal buu qaadanay maxkamadda horteeda qiraalka uu ka qirtay 68 waafaqsan ayaa ka muhiimsan waxa soo waxaan rabnaa maxkamadda inaan soo gudbo dhibanihii ayaa maxkamadda horjooga maxkamadduna waa wareysatay waana aragtay cadayntana waa laga qoray waxaa kaloo rabnaa inaan maxkamadda soo gudbino mudane gudoomiye wuxuu sheego maxkamadda ka hor sheegay eedeysane maxamed cabdullaahi dhoore inuu gabadha uu surwaalka ka siibay uu falkaasna uu biyihiisii shaawiisa ku fidadaadiyey waxaa rabnaa inaan soo gudbino caddayn ahaan surwaalkii gabadha ay wadatay uu ka siibay oo biyihii ku hallaabay ay ku daadsan yihiin waakana mudane gudoomiye maxkamadda nala arkaan dhanka kale axmed salaad kulan ee garsooraha maxkamadda gobolka oo dhageystay darafka kale ee dacwadda oo dalbaday iyadoo la eegayo qiraalka eedeysanaha in maxkamaddu khafiifiso ciqaabta uu wajihi karo ayaa xiritaanka fadhiga ku dhawaaqay xukun dhan 5 sano oo xabsi ah iyo bixinta 2 xaalaad oo maxkamaddu sheegtay inay noqonayaan dhiigga gabadha xukunka maxkamadda gobolka galgaduud waxa uu caddaatay in eedeysane maxamed cabdi dhoore uu yahay dambiile galay faldambiyeedka ku xusan qodobka 398 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidaas darteed si waafaqsan qodobka 123 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku heshay eedeysanaha faldambiyeedka lagu soo eedeeyay ee ku xusan qodobka 398 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna u aqoonsatay inuu yahay dambiile waxay ku xukuntay dambiile maxamed cabdi dhoore in aamina xasan jimcaale 5 sano oo xarig ah iyo 2 halaad oo ah magti dhibban farxiyo علي محمد waxaa loo cuskaday xukunka asbaabaha sare ku xusan cidaan ku qancin waxa u furan racfaan muddo 30 bari ah gudaheed cabdullaah warsamo roob lawr baahin wallaahi billaahi taala aan waxa wala yaababa nin dhan wajigu qarsana ma nin gabadh lix jira isu soo qaaway subhanallah wala adduunka dhan hadda fiirisid mag ma 200 laba neef oo geelaha magteeda waa 50 neef oo geele jeedalna wuu leeyahay hadduu soo guursan ila jeeda 80 jeeda lagu dhuftay wallaahi bilaa ilaahi xuduudis maxaa loo
dowlad la-aanta maxaa wax badan naga halaabay. allah ilaahu dowlad kheyr qabtan oo dhale insha allah biidni illaahi. guul iyo gobonimo insha allah dhamaantiin.